وهاساوي كفتنا هو سوغا ميسن أبوان كي أبوان دبو دلينيرو سلسلة مانسوين كأه دحمرتي أيا أردغان دود أدق أو كسليسن غور أبوان بدن oo kale ayaa taxahoodu ay soo jiiteen oo iyaguna kaga soo qayb qaatay maasooyin iyo gabayo ay soo tiriyeen waa abwaano qudhoodu rag iyo dumar leh oo la kala saftay labada hal abuur ee silsiladu ay dhaxmartay waxaan si laga gayoonaynba maasooyinka kaftanka ah ee ay isugu halceliyeen ayaan kaaba Axmed Caydiid iyo Cabdiraxmaan Axmed Jaamac oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Darajo maasooyinkaasi oo ilaa imaka socda marayana dhowr iyo 10 maaso sheekadan ayaa ka bilaabantay meerisyo kooban oo ay tirisay ayaan waa beydad ay ku soo dul qortay sawir iPhone ah oo barteeda Facebook ay bulshada kula wadaagtay tixdaasi ayaa u dhignayd sidan moobilka la wada qaatay marna iibsan kari waayay duca iyo adkaar miisay balse aanu hela maalin Cabdiraxmaan Darajo ayaan kaaba jawaab ka soo siiyay meerisyadan isagoo oo ugu baaqay inuu siinayo moobilka iPhone-ka ah ee ay rabto waxaase uu raaciyay shuruud ah inay xaasu noqoto oo ay guur ka aqbasho waxana uu yiri haddii moobilka fiican aad muhatay oo doontay aniga mid ku keeni oo meherba ku siinay marka hore bal xaaskiyo in noqo marwiyo oori wameerisyada Cabdiraxmaan ayaa la wadaagay waa tixda silsilada abuurtay doodna ka dhaxdhalisay labadan hal abuur doonista moobilka ee ayaan iyo deeqda Cabdiraxmaan Darajo ee shuruuduhu ay ku lamaan yihiin midkoodna ka dhab aha waase kaftan ay isla heleen oo ilaa ay maka socda ayaan umay cuntamin in moobil iPhone ah guur lagaga doono waxaanay arrinka ka tirisay tixdan marka hore salaantaada maanka gudoomaya midka wacan ka sii fiican iga hoomara waaxid kaftankeena marinkiisa dadku way ma jeerteen hadda waa markaygii aan miimka ka higaadsho magacaygu waa kaaba mutibaan hablaa dheere nin kastoo ismoodaya inuu maal adduun haysto nama jaro miskiinkaasi nin nasiib la mooyaane quruxdana macbuudkaygu igu miis dhammaanteedba sharaftana ku maamuusne qoys baanu ahay muunad moobilkaad xayeysiisay ee aad wax weyn mooday midan oolin suuqeena midab aan cid kala qaadan waataan dalbaday maanta muxibada ku yara saaqday maaweele weeyaana ka bedela miyaad keentay macdantiya nimcada aasan maasada haddaan koobo nolol guur macaankeedu degdeg iyo gal uun ma aha waxaa loo maraa daal ee waa maxay ujeedkaagu Cabdiraxmaan jawaabta ayaan kuma harin meherkii ay ka biyadiidayna waxba kama bedelin waxna kuma soo darin waxa uu soo noqday isagoo raba inuu ku qanciyo moobilkaasi waxa uu sharaxayaa in moobilka uu rabo inuu guurkeeda uu ku hantaa ka qiimo badan yahay geela iyo guunyada kalaba waa kan isagoo ku nuuxnuuxsanaya muhiimadda moobilka iyo siduu u mudan yahay in meher lagu kala qaato murtidaada jaangoysan hadalkaaga miisaaman iyo erayga meelaysan dadku waa u mashxaradeene horta mudo salaan diiran kaftankeena maamuusan wax munaafiq sheegtoo dhan shaydaanka madow oo dhan laga naar maqluubkoo dhan horta moobilkan sheega dadka qaar siduu mooday ee geliyay maankiisa ka mug weynaya u sheega waa muraayad guudkiisu macdan weeye dhuuxiisu dahab weeye muuqiisu megabyte-ka qaadkiisu milyan weeye hayntiisu maalkiiyo barayskiisu 100 geela oo miigan uu ka sii martabad weyn nin miskiin goyn maayo qaramada midooboo dhan madaxweynayaashooda midhmidh baa ka yara haysta afrikadan madowgaana maalintii la keenayay military ilaaleeya kama maarminkii qaata bal waxaad malaysaa adoo moobilkii haysta innaguna mataanownay nolosha macaankeeda mid nasiib la mooyaane marraa waxidii haysta gabagaba masaladayda waxa aan ku soo moosay intaan maansa kuu sheegay ama kuu maldahay sheeko dadka ha iska maqashiinin hablahana ka qari maandhay waa intay masayraan